magacaygu waxa weeyaan Muniish waxaan joogaa magaalada Burco waxaan jecelahay inaan idinla wadaago bulshada Soomaaliyeed la wadaago qisaaniga igu saabsan taasoo ah wiil aan isbaranay 2019 bishii saddexaad wiilkaas muddo dheer xiriirkaygu uu socday markaas maxay ahayd aan aad isku jeclaanay kula dhankiisa anigana aan jeclaa isagana dhankiisa aan jeclaa waxa dhacday wiilkii 2019 bishii sagaalaad xiriirkoodu waa mid sanado soconaya oo midba kan kale uu u sheeganayo inuu jacayl xadhkaha goostay u hayo haddana waagii baryaba waa la sii kala dudayaa waana sababta ay markiiba sheekadu u guda gashay maalmihii mugdiga iyo xanuunka maalintii bilataba xaalku sidii hore wuu ka daran yahay inuu isbedelo kale aan gaabis dhankiisa aan ku arkay oo xiriirkii dhinaciisa uu ka gaabsanayo dadkana uu ka shakiyay waxa dhacday gaabis dhankiisa baan ku arkay dadkana maxaa dhacay waxba uu ii sheegi waayay markaan wuxuu leeyahay maxay ahayd waxba ma jiraan waan ku soo wacayaa wax chance leedahay beeratuusina ma jirto markaas aan la hadlo aan kugu soo celiyay bigoona iguma soo celinayo aan nafsadeydii ciriiri baan dareemay waliba badan baan dareemay waayo qof dhanaad jeclayd oo maxay ahayd isbedelay waxaadan ku ogeyntii aad ku aragtay wallahi waa dhibaato dadana waxa dhacday inaan Facebook cusub aan samaysto gabadheen inaan saaxiibnay sawiradeeda aan saaray dadana Facebook aan ka codsaday isagii Facebook markii aan ka codsaday oo iga aqbalay waan la hadlay inkasta oo iyada uu u sheegay inuu seexanayo oo si kalgacayl leh ay u sii macsalaamaysay haddana gabadhan cusub ee uu bartay oo isla iyada uun ah ayuu wacayaa waxaanu barashadiiba u sheegay in aanu wax xidhiidh lahayn dadana qof kale iskugu sheegay isagana way sheegay magaciisa bacdi waxaan ku oriyay walaal waan ku doonayaa waan ka helay maxay ahayd ku doonaya waan ka helay waan ku oriyay okay buu gudwa caadi walaal oo iska heli karaa maxay ahayd telefoon numberkaaga WhatsApp-ka oon siiyay marka aan ahaantii wiila hadlayay munishahan wiila hadlayay wuxuu guri waan seexanayaa buu goore halkana way igala ballamay bacdi waxaan ku waayay iska seexo dadana telefonkii inaan aan walaalanahay telefonkeedan u sheegay buu iga soo wacay markaa sawirkayga aniga profile-ka u saarnaa dadana maxay adu inantii codkaygu garanaya inan baan ugu dhiibay inantii baa cabaar la hadlay waxay ku jiri walaal wax xiriir ma leedahay may buu goore wax xiriir ma leeyahay dadana maxay waxay ku jiri waayo inanta hadda ku saaran profile-ka ku saaran wuxuu ku yiri waa inan tuygeera walaalanahay buu ku yiri kale adoo cabaar hadalkiisii dheeraa iyadii way adkaysan kari weyday way awoodi weyday inay xanuunka u sii adkaysato waxay wacday isagii oo telefoonkiisu mashquul ku yahay shukaansiga iyada walaasheed oo iyadoon dirsatay waqti kadib ayuu ku soo celiyay isagoo u sheegaya inuu la hadlayay wiil ay saaxiib yihiin laakiin mabay aamusine iyadaa runta u sheegtay oo wuu ogaaday heblaayadu shukaansanayay in ay iyada ahayd kadibna waxa dhacay anigii maxay qalbigaygu isbedelay jawigii igu isbedelay dadana telefonkaygii baan ka wacay waa mashquul WhatsApp uu igu soo celiyay tunanti ka dhigay waxaan ku yiri la hadlaysay suudigu waan seexanayaa dadana wuxuu igu yiri wiilan saaxiibnay baan la hadlay waxa dhacday inuu haddana igu yiri aan ku dhawaay iska seexo dadana inanta WhatsApp kadib igu soo celiyay aniga ka qabtay markaa dadana maxaa kugu dhacay waan ku yiri walaal iga raali noqo wiil baan la hadlay saaxiibay maadaama wiil saaxiibtii la hadlay may walaal baan ku yiri inantii aad dafiraysay inantii cusbadin inanka saaxiibkaada intii baan anigu ahaa barasho cusub baan ku yiri aan ku salaamaya halkii markii niyadeyda waxa gashay inaan ka go'aansado waa qof waxa jecel ka adkaysan weyday inankii shukaansiga badnaa markii uu cod naxariis leh cafi uu ku yiri oo cafisiba haddana waxay ogaatay mid kale oo uu shukaansanayo khadkan ugu jirta
habeenkii taleefankii waan ka xidhay wuu soo wacay dhowr goor mar dambe waa furay aduu maxay ahayd wuu raali geliyey wax dhacay bay ahayd iga dhaaf waan iska dhaafay waay baan ku yidhi waan ku cafiyey 2 cisho ka bacdi anagoo habeen wada hadlayna ayaa waxa dhacday in qof soo qaraaco wuxuu yidhi wiilal maadeernahay soo wacay isug buu yidhi waay baan ku yidhi aduu muddo dheer buu iga maqnaa dadana waxaan ku yidhi ilaa caawil dhan yaad la hadlaysaa dadana marka wiilka ay saaxiibka yihiin ama in adeerka yihiin wuxuu kula hadlayaa message oo qoraal uga diraya gabadhna waxa dhacday inuu call WhatsApp kala hadlayo بعدين قرال كوينك كلها اللي بسكريشوت يبصق هذا قرال كويس درويدي ويل كاس الله الله يها marka qoraalka dushiisa waxa ka qofku koolka kula hadlayo WhatsApp-ka gabadha magac waa ku qoran sawir uu leeyahay baa u saaran dadana waxaan ku yiri waay qofkan la hadlaysaa gabadhan la hadlaysaa maxay haday sawirka ugu saaraya waa dumaashada admool wax bay ugu dhaxdhaxay way ogtahay inuu xaajigani gudub badan yahay oo kulba kurkiisu ka soo muuqanayo godka khiyaamada haddana qalbigeedu degan yahay inkasta oo 3 maalmood iyo 3 habeen nafteeda xarka kaga haysay oo aanay la hadlin haddana xarkihii naftiiba soo goosatay oo diiday inay agtiisa ka maqnaato waxa dhacday adoo halkii habeen 3 cishaan wicinin isnaanu soo wicinin dadana habeenii maalin ayaan murugo iyo oohin yahay oo qof maanta ka tiigaro gaarsan kara maaha qof caadi la soconaya maaha qof runtii wax ku sheegaya male qof marna aad arkayso inuu wax iska bedel mar isaga ka dhigay inuu ku jecelayo yaan wadadka lagu jireesha lagu tilmaamo waxa dhacday maxay haday aduu sidii inuu hadana mar labaad raali geliyo aduu intii caadi baan wada soconay waxa dhacday 2020 aduu bishii 10 meelahaas aan isqabanay dadana aduu habeenada kamida ayaa maxay haday ay soo wacay isagoo ila hadlaya oo baan WhatsApp hore isku bedelay oo baan arkay WhatsApp-ka la isticmaalay WhatsApp-kaaga hore isticmaalay wuxuu yiri maxay haday wala fudud baa loo furtay ha dadana wayaa waxa ma qof kale Soomaaliyeed suri iska bada gabadh markay soo wadada dabadiisa jooga gabadh cadaan aan qaba isticmaasho buu marba marka ka dambaysa waxay ogaanaysaa wajiyadiisa badan ee ka samaysan khiyaamada haddana kama qoosatee way sii jeclaanaysaa 3 caruur ah ay 2 dumar ah u kala dhaleen ayaa magaalada joogto oo burco ah u joogay inta uu jacaylka beenta ah ku habayina ma ogeyn laakiin maanta ayuu runta u cadeeyay dadna gabadh cadaan ka soo qabtaa dadna wuxuu yiri gabadh cadaan ah qabo 2 caruur ay leedahay buu marka sagtaas kaftan bay ka ahayd dadna wada ciyaarsan ku hore dadna wuxuu yiri maxay haday hatta qaar nool oo aan dhalay baburca kula jooga marka aniga inaan buu sheegtay inaan gabadh hore soo guursan dadna wada ku kaftamay sabaan ku caadi wuxuu sheeg waxa dhacday maxay haday adoo waan ka carooday dadna wuxuu yiri waan iska kaftimay gabadh cadaan ma qabo laakiin se caruuran dhala burca jooga si uu joogan baan ku maxaan ogaan waayay inta soo dhan baan xiriir lahaynay sababta diga qaranaysa maxay tahay wuxuu 2 naagood baan adu soo guursado 3 caruur ay dhalay ana hantii markaa wad isbedelay waxaan isdhahay qof kulli dee ubadkii Ilaahay siiyay ka qarinaya dee waxyaabo kale ka qarinaya ma jiri kartaa aduu halkii murugo iyo oohin halkiiga bilaabantay iska daayay oo dhacday baan iska dhaaftaasi halkii aanu tii ku dhaafay ayaa xiriir ayaa maalmo badan aan ila soo hadlinin dadana maantana way ooyeysaa ilmeynaysaa oo waagu murugo iyo madow ayuu ugu bishay inankii taleefankiiba kama qabanayo maalmo oo waaba ku dhigdhigaya ka xidhanaya isu mashquulinaya waa xaalku ka meerayso dadana waxaan ku maxaa kugu dhacay maxaad la soo hadli weyday dadana mar walba wuxuu yiraahdaa kugu soo celiyo waan garaaca taleefanku igu dhigaya igu mashquulinaya isu buuganaya kugu soo celiyo iguma soo celinayo dadana waxaan ku raacaa haddii aad aniga iminka aadan doonaynin
wanka noloshaada wanka faaruqaya baan ku yiri aniga runta uu ii sheeg xadiga ma weelinaysa baan ku yiri dadkana maxay haday wadagtii baan ku yiri inaan ku jecelahay inaan laantaan noolaan karinin maxaa soo dhan igu galaysaa baan ku yiri wuxuu igu yiri maxay haday waxa soo dhan wax ka xanuun badan baa jira imtixaan baan ku jiray soo ducay bas hadalka badan iga dhaaf waayo baan ku yiri aan ku soo ducaynay ilaahay ku fududeeyo maalintii horta nafsadeeda waxa ku qasbay nafteeda waxa ku qasbay wax walba haday dhacayaan inaan maxay aan go'aan ka gaaro waxa dhacday inaan siraado go'aan gaar haddana go'aankii aan gaari kari waayo qof aan jecelahay weena ka go'aansan karo waxa dhacday habeenkiina qol madow aan iska jeefto qolka cunto aan cuni jirin aan dadka xataa ii soo galayaan dhibsan jiray marka xataa qof ii soo galay laarkayga shido inaan ta guluubka intaan guriga ka saaro qolka ka saaro meesha ka saaro inaan jajabiyo qolka madow waan ku jiro cunto aan cuninin biyo waxaan inaan cabbi jirin cuntadii cunisteeda way deysay sidii bay qolkii madoobaa xabsi ugu tahay maskaxdeedu boqolaalka wax kolba mid soo hordhigayso way ku khalkhashay ugu dambeyn xaaladeedu way ka dartay oo waataa maanta lala cararay ee dhakhtarka jiifta way nafteeda waxaan si aan u go'aamiyo waan garan waayay isaga kuma noqon karo go'aan kale kama qaadan karo waxaan sameeyay waan garan waayay isagii lama soo hadlayo ma soo wacayo qofka xataa wala raali geliyaa intaas ku qanxisaaba waxa dhacday inaan maxay aan halkii jiifa allay qaado dhakhtarka la geeyo dhakhtarku caafimaadkeedu fiican yahay laakiin wadneeda xoogu garaacay marka anigu istareemay wax xanuun oo kale ma hayaan ande dhaawac qalbigayga soo gaaray aan ahay laakiin xanuun nafsiyan ay hayaan ma jirto tan la leeyahay wadneeda aad u garaacaya waxa dhacday inaan 13 cisho dhakhtarkii ku jiray dhakhtarkii jiifay dadana ilintu way iga dareeraysaa laakiin dadkan waxay moodayaan inaan aniga xanuunsanayo ma fahmiyowga waxa dhacday inaan waxaan dhibsaday dadka ooyinteeda arkay lintayda dadana waxaan dhakhtarka laga saaro may wad xanuunsanaysaa wadnuhu sayd buu ku xanuunayaa in maxay laga saaray dhakhtarka may baan ku dhakhtarka iga saara dhakhtarkii waa laga saaray guriga la geeyay mobilkeeda way ka wada saartay dhammaan applicationadii social media wixii ay xasuuso ka haysay way qubtay oo way daadisay haddana sidii inay dhaanto oo ay maaranto iska daaya isagii bay u laba buglaysaa magaaladii ay joogtay ka haajirtay oo magaalo kale ayay tagtay si ay nafteedu u maaranto wadnaheedu garaaca u daayo oo ay xasuusaha dhibka badan uga maydhato balse waabay ka sii dartay markii guriga la geeyay telefonkaygii waan ka saaray WhatsApp haduu lahaa iyo dhammaan waxaan ku xasuusanay oo down iska wada saaray qolka madow ee cilada inta dadku jiifaan anu waa soo jeedaa oo mar fakiraya mar maxay indhaaga ilma ka soconayso haddana nafteeda waxaan ku qasbay inaan haddana aan ka go'aansado oo go'aansan karbaado hargeysa iska waxaan balkulka jawiga soo bedelo hargeysa markii aan tagay haddana cilla fara badan iyo murugo badan baa ay sii bilaabantayba iyo maalmo mugdiya maxay ahaday hargeysa on joogi kari waaye waan iska soo noqday burcaan imid waxaan sameeyay waa garan waaye naftaydina ma haligi karo ma dili karayo ma tahriibtaayo iska tag wadaga iska tagtaa may baan istiraadaan taasi waa haligaa laba naftaada dili ilaahay baan iska bariyo ugu dambeyn naftii ay nafteedu dhibka oo dhan u maraysay kamaarankiisa ayaa soo wacay inay baraare galaysay ayay niyaddeedu sawiratee 2 maalmood kadib maxaa dhacay aad markii aan soo yir ilaabaya ayaa maxay aan sidii hore dhaamadee aan cuntada cuno sawir caadi noqonayo ama maxay waxa dhacday inuu maxay ila soo hadlay markuu ila soo hadlay oo soo salaamay salaantii baan ka qaaday 2 cisho ka bacdi waxaan arkay hambaliyadii arooskiisa meherkiisa ayaan arkay
taasina markii hore rajaa ma yar qabay markii horeba laakiinse imika rajaa dhig caadiya baan sii noqday markaan arkay waayo qofkii guursaday waan sii naxay taasina murugo labaad bay taasina ay sii noqotay haddana waxay bilaabmay maalmo madoobo kale markaan kuwii hore ka soo baxay madow labaadu tii hore kaba sii daran baabay bilaabantay intii hore rajaa baan qabayba maalmaduu madoob ay sii bilaabmay maxay heeday halkan murugo iyo oohin waxaan sameeyo waan garan waayay xal kasta uu ku soo adkaaday naftii rajada ku noolayd sanadaha badanna u samraysay ee aan ka samrin ugu dambeyntii isagii ayay wacday oo aroos ah oo way la hadlaysaaba iyadoo ku leh waan hambaliyay waxaan ku lahaa ilaahay ubad khayr qaba haydin siiyo aan ku saambaliyeynaya waan iska dhaafay waan iska tiray WhatsApp-kayga la soo xidhiidhay waan iska dhilid gareeyay halkaas maalmo madoobo kale iga sii bilaabmay cillo iyo murugo iyo calool xumo waxay dhacday nafteedina haddana mar labaad aanu tacsiyadeeyo adduunkii oo dhan haddana wuu igu soo yaraaday waxaan sameeyey waan garan waayay maanta go-aan aan isku qasbay inaan qaato mooyaane xal kale waddo kale aan mara ma laha maanta gabagabadii nafteedu waxay soo xulatay laba xaal oo kala daran waxaa hor yaalla labada go-aan ee ah suncab iyo tahriib oo naftaada biimee waxaanay go'aansatay waxa dhacday inaan socdo waddankaba iskaga dheero iska tago tahriibba badana iskiisa dhimatay waxaan tahay waxa dhacday inaan baxo oon tahriibo Itoobiya markaan maray baa la soo qabtay waa la soo celiyay waxaan isiri ma cabta haddana waxa dhacday aan isiri naftaada qof bini'aadan maanta wax walba aad samayso haddaad istisho haddaad wax walba samayso qofka bini'aadanka ay ma ku oga markaa naftaada haligi baan isiri si aad ugu go'aan uga qaadan lahayd oo qofka qalbigaaga uga tirtiri lahayd samee waxaan xataa qof kale haddaan xiriir la sameeyo isagii baan xasuusanaya gooran qofkii taleefonka ku dhigay ka garan maayo ma ka qabanaya qof taleefon ilaa intaasoo dhan xiriir baanan sameyninba cidna lamaan hadlaynin taleefonkayga intaan xidhoon meel iskaga rida jiray asxaab ma raaci jirin faamilka dhan xaafadda qof kula kale ma hadli jirin qol madooban iskaga jiri jiray intii aan soo noqday tahriibta ka soo noqday qolka madoob aan iskaga jiri jiray waxa dhacday ka badnaa ee xumada daran marsiiyay kulba dhul cagaha u saarayay tahriib oo isbiime ama nafta go oo dil ku lahaa hooyadeed ayaa ogaatay oo arrinkiiba dhamaystay inkastoo hablahayagu aan walaalahay ay ogaayeen laakiinse aanay hooyo iyo aabiya aanay ogeyn xataa markii hore wiilasheeda xataa ogaadeen oo marar badan oo aan sawirkiisa ay u arkeen ay u raadeen ninkan ka qaad sawirka ku saaran dadana hablahayaga iyo madaxweynaha waxa dhacday markii dambe xataa in hooyaday ogaatay dadana hooyo hooyo waxay jireen maxaa kugu dhacay waxaan ugu waan xanuunsanaya sidee ku joogan ku ogahay waxaan kugu dhacay maad sheegtid dad naftaada sidaan u kala dadana way ku joogan ku ogahay hooyo qof bini'aadan naftaada ha cadaabin hana murugoonin waxaad ogaataa qofkan inuu shalay si fudud kugu soo galay maantana si fudud u kaaga tagay marka inaad ka warwarto maaha ama aad ka daba calaacasho ama aad u sii oydo horuusi soco naftaada qof kaloo ka fiican wada helaysaa markaa talida hooyada waan qaatay sidii baan animayga kaga samray ugu dambeyntii waxay idinka oo daawadaha barnaamijka qiso iyo qiiro ah ay idinka dalbanaysaa inaad u samaysaan laba codsi hal codsi baan u dirayaa waxaan fariin halkan ugu dirayaa wiilasha Soomaalida gabdhaha Soomaaliyeed kulay gabdho way jiraan hablo inwada qalbiga ka dhaawaca iyo wiilal sidoo kale labaduba way jiraan balse waxa la leeyahay dadkaas qof kale aad marka hore iska hubso naftaadana naftaada wada raaciso maaha ama qalbigaaga wada hibayso maaha tartiib qofka u gal kalsoonidaada boqolkiiba boqol qofka bini'aadanka inaad siiso maaha laakiinse boqolkiiba konton si
si hadhowto qofka waxa la raaxo doono uu sameyn karaa bini'aadan uu isbedeli karaa sida waqtigu isku bedelo bini'aadankuna uu isku bedelaan marka qofka bini'aadanka uu isbedeli karaa kalsoonida 100% si halo soo kota kale aad iskugu difaacdaadii ahaan waxaan bulshada Soomaaliyeed ku codsanayaa in maxay iiga soo ducay maanta meel aan isagii kuma noqon karo waa nin maanta xaasil Ilaahay u barakeeyo marwadiisa looda Ilaahay su barakeeyo marka waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wali xasuusihii xumaan wali xasuusihii qalbigayga kama dhamaanin wali qalbigayga kama wada bixin bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay soo duceen in si qalbigayga Ilaahay iga meedho